assalaamu calaykum. Soo dhowaada daawadayaasha sharafta badan. Asxaabtii Nabiga sallallahu calayhi wasallam boos weyn ayay ku leeyihiin qalbiyadeena. Wayna mudan yihiin in ay qaali ku noqdaan quluubteena. Maxaa yeelay waxay ahaayeen dadka ugu sharafta badan markii laga reebo nebiyada. Saxaabada waxay lahaayeen karaamo badan uu Ilaahay karaameeyey. Karaamadaas waxaa ka mid ah saxaabiga aan qisadiisa ka hadli rabno, kaasoo uu Ilaahay ku badbaadiyey malag uu u soo diray. Haddaba aan ogaanno kumuu ahaa saxaabigaas. Laakiin ka hor intaanan bilaabin fiidiyowga, haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya, noona sheergaree. Saxaabigan wuxuu ka mid ahaa Ansaar, waxaana lagu naanaysi jiray Abi Miclaq al-Ansaari. Wuxuuna ahaa ganacsato, wuxuuna caan ku ahaa alla ka cabsi iyo xalaal miirasho. Saxaabigan maalin maalmaha ka mid ah wuu baxay si uu howlihiisa ganacsi u sii wato iyo shaqadiisa. Waxaa waddada ooga hor yimid tuugaasoo wato hub oo dadka dila, xoolahoodana dhaca. Tuugii ayaa saxaabigii ku yidhi, waxaan rabaa inaan ku dilo, maxaa alaab ah ood wadataa? Saxaabigii wuxuu yidhi, maxaad ii dilaysaa ood ku falaysaa dhiiggayga? Soo xoolo ma rabtid? Waan ku siinayaa dhammaan xoolaha aan wado. Tuugii wuxuu yidhi, maya, inaan ku dilaan rabaa. Saxaabigii wuxuu yidhi, waayahay, ii ogolow inaan tukado 4 ragcadood. Tuugiina wuu u ogolaaday. Wuu weysaystay wuuna tukaday saxaabigii, balse markii uu marayay sujuuddii u dambaysay wuxuu aqriyay ducadan: yaa waduud yaa dul carshi almajiid yaa facaalan limaa yuriid أسألك بعزك الذي لا ترام وبملكك الذي لا ظلام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. markii uu salaada ka baxay wuxuu arkay nin faras wata iyo seef, wuxuuna soo aaday ninkii dhinaca tuuga wuuna dilay tuugii. Saxaabigii Abi Miclaq wuxuu yidhi, yaa tahay nin yahow, Ilaahay baa igu kala badbaadiyey maanta. Ninkii faraska watay wuxuu yidhi, waxaan ahay malag laga soo diray samada 4aad. Markii aad ducaysatay, samada ayaa gilgishay. Kadib waxaan ku ducaystay in uu Ilaahay iga dhigo malaga uu kuu soo diri doono. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday in qofka dulman uu ajiibayo ducadiisa. Waad mahadsantihiin walaalaha sharafta badan. Sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina kale. Wassalaamu calaykum.